barnaamijkan soo socda waxaa bixiyey saaxiibada iyo howlwadeennada Joyce Meyer mashruuceeda. Haddii aad noloshaada jeclayn, tag gurigaaga oo kulan naftaada la yeelo, ka fikir waxa aad ka fikiraysay. Intii aad wax kasta dhaleeceyn lahayd nafsadaada kulan la yeelo oo adiga uun isweydii inay tahay waqtigii aad ka tanaasuli lahayd fikirkaaga xun. waa og tahay inaad rumaysid wax ku heshid waa arrin gaar ah, inaad khibrad wax ku heshidna waa arrin kale. inaad si sharci ah wax ku heshid waa mid kale. sidaa aniga ugu yeero waxaa jira barakooyin badan oo aan xaq u leenahay waayo Masiixa ayaa dhintay, dhiiggiisa ayaa daatay. Axdi cusub ayuu dhiiggiisa nagula yeeshay. haddaan nahay Masiixiyiin dib u dhashay, waxaan isaga la leenahay dhaxal, isaga ayaan wax la dhaxlayna. annaga ayaa leh, laakiin waa lahaanshada tamarar qaarkood dadka ku noqon karta mushkilad. Israa'iiliyiintii waxay ka soo baxeen adoonsigii Masar, waxay adoomo u ahaayeen Masar. waxay u dhigantaa in adoon loo noqdo dembi. Ilaah wuxuu iyagii u diray badbaadiye Muuse, annagana badbaadiye Ciise Masiix. waxaan ka soo baxnay adoonsigii dembiga, iyagana waxay ka soo baxeen adoonsigii Fircoon. waxayna u kaceen meel loogu yeero dhulkii ballanqaadka. waxaan ka soo baxnay adoonnimadii dembiga, waxaan maqalnay ballanqaadyadii Ilaah, waxaan bilownay inaan barano sidaan ugu habeen lahayn nolosheena. haddaba Israa'iiliyiintu waxay ahayd inay dhex maraan meel Baybalka ugu yeero lamadegaan. waxay ahayd safar 11 maalmood ah sida tukaha uga dowlo si toos ah oo uga gudbo lamadegaanka. si kastaba waxay ku qaadatay 40 sano oo dheer oo murugo leh, sanooyin xanuun badan ka hor intaysan qaar ka mida ugu dambaystii gelin. intooda badan ma gelin. sidoo kale dhowrkii milyan ee ka soo baxay, qiyaastii 1 milyan iyo bar iyo carruurtii, in yar ayaa galay dhulkii ballanqaadka. Yeshuuca iyo Kaaleb iyo qaar ka mid carruurta aan qaangaarin markii Ilaah iyaga ka quustay, way ku filnayd inuu yiraahdo idinku ma gelaysaan dhulkii ballanqaadka. hadda waxaan fiirinaa sheekadooda markaasaan madaxa ruuxnaa, waxaan ku fikirnaa doqon. haddii ay ahayd safar 11 maalmood ah, sidee idinkugu qaadatay 40 sannadood? laakiin waxaan u baahannahay inaan toosno caawa oo aan carafsano ubaxa oo aan ogaano in qaar badan oo naga mid ah ay ku dul wareegayaan buuro la mid ah waqti badan oo dheer. waxaan idinku leeyahay caawa waa waqtigii aad dhex mari lahaydeen idinkoo si dhaqso leh u tagaya dhulkii ballanqaadka. waxay u malaynayeen in cadowgoodu yahay dhibaatadooda. waxay ahayd Ismaaciiliyiintii, Xawiyiintii, Yebuusiyiintii iyo Kancaaniyiintii. kulligeen waxaan leenahay intii. waxay noqon kartaa ninkaaga xumaantii, dariskaaga dhibbadnaantii, cudurradaadii, faqrinaantii. laakiin kulligeen waxaan leenahay tii. waxaan u malaynaa inay yihiin dhibaatooyinkeena. shaydaankii waa shaydaanka hadduu iska kay dhaafi lahaa. haddii kan, haddii kaas, haddii wax kale. halkaan bilaabay waxbarashadan sanooyin aad iyo aad u badan ka hor oo aan sii baaray si qoto dheer. waxaan si aad u cad kitaabka uga xaqiiqsanay in cadowgooda uusan ahayn dhibaatooyinkooda, maxaa yeelay waxaan aragnaa Ilaah iyaguu la jiray. haddii Ilaah inala jiro, yaa naga hor iman kara? ma jiro wax adduunkan saaran oo naga guulaysan kara hadduu Ilaah inala jiro. Ilaahna iyaguu la jiray. wuxuu ku yiri haddii aad samaysaan waxaan idinku leeyahay, waxaad safraysaan safar dhaqso ah oo aad uga gudbaysaan lamadegaankan, oo waxaad ku raaxaysanaysaan ballanqaadyadeeda. laakiin ma ay samayn taas. ma aysan ahayn cadowgooda, ma aysan ahayn Kancaaniyiintii, Beersiintii, Xiiwiyiintii iyo cadowgoodii oo dhan. ma ayna ahayn kii xoogga weynaa ee dhulka deganaa. waxay ahayd fikirkooda xun iyo dhaqankooda xun. ma aysan ogeyn sidii ay ugu fikiri lahaayeen sidii uu Ilaah rabay inay ugu fikiraan. run ahaantii waxaad ku fikiri kartaa sidii aad adoonsiga uga soo bixi lahayd oo aad ugu fikiri lahayd xorriyad haddii aad baratid inaad ku fikirtid sida uu Ilaah rabo inaad u fikirtid. ma suurtoobaysa inaad guulaysato adigoo ku fikiraya adoonnimo. ma suurtoobaysa inaad heshid farxad adigoo ku fikiraya murugo iyo niyad jab. ma suurtoobaysa inaad xor ka ahaatid dembi adigoo ku fikiraya inaad adoon u tahay dembi. waxaa jira tusaale wanaagsan oo aad ka helayso Rooma cutubkiisa 6. aayadda 2 Bawlos wuxuu yiri inagoo dembiga ka dhimanay sidee aan ugu noolaanaa dembiga. kitaabku wuxuu leeyahay markii Masiixa dhintay annagana waan la dhimanay.
inuu dembiga ku qaado isku talaabta si aan dembiga uga dhimanno oo xaqnimo ugu noolaano ma ogtahay waxa ay taasi macnaheeda tahay waxaa jirta qayb ka mid ah qaybta dib u dhalatay ma rabta inay samayso dembi way ka dhimatay dembiga waa sababtaas hadda markaad dambaawdo way ku dhibaysaa intaan dib u dhalan ka hor kuma dhibi jirin maadan kala jeclayn waad jeclayd waad ka heli jirtay laakiin markaad dib u dhalatay hadda waxaad haysataa dhibaatooyin cusub sababtu waa inaadan dembiga ku farxaynin mar kale way ku murugaynaysaa waxaa jira qayb ka mid ah oo aan rabin inay dambaawdo adigoo weli ku dhex jira jirka iyo maskax aan la cusboonaysiinin dareen aan la kontarooli karin iyo doonis madax adag taas waa inuu ka shaqeeyaa ilaah iyo ruuxa quduuska taasi runtii waa lama degaankeenna nafteenna ilaa ay ku cusboonaato ereyga ilaah waa lama degaankeenna waa inaan baranaa sida ilaah noo hoggaamiyo ruuxeenna ku jira oo dhex gala nafteenna ma doonayo inuu halkan yaree ruuxadda ku noolaado wuxuu rabaa inuu galo maskaxdaada dareenkaaga doonistaada hantidaada iyo xiriirkaaga madadaaladaada ugu dambayntii wuxuu doonayaa in lagaa dhex arko adigoo dhalaalaya oo iftiimaya kolkaa dunidu waxay leedahay qofkaasi wuxuu haystaa ayaan rabaa haddaba dadow ilaah ammaana Roman 6:2 waxay leedahay dembiga waa ka dhimanay laakiin Roman 6:11 waxay leedahay sidaa oo kalena idinku isku tiriya inaad dembiga u tiin kuwa dhintay oo ku nool xaqnimada waan jeclahay taas maxaa yeelay ereyga ku fikridda wuxuu ka socdaa maskaxda haddaba sidaa oo kale Roman 6:2 waxay leedahay dembiga waad ka dhimateen laakiin Roman 6:11 waxay leedahay ku fikir inaad dembiga ka dhimatay rumayso inaad dembiga ka dhimatay haddaba kulligeen waxaan leenahay waan ka dhimanay dembiga oo ku heesnaa inaan masiixa ku xorownay laakiin waan ka cabsanaa dembiga waxaan dhahnaa waan caadaysanay waxaan ahay sidaas iskama dhaafi karo way adag tahay tan kama gudbi karo waxaan ku xirannahay goobta islama degaanka waa inaan bilownay inaan u fakirno sida ilaah u fakaro oo aan dhahno waxa ilaah dhaho taasi waxay naga caawinaysaa inaan dhaqso uga baxno lama degaanka oo ku noolaano ballanqaadyada ilaah fikirkaada waad ku kontarooli kartaa ilaah caawimaadiisa caawimaad badan oo ruuxa quduuska ka timid wax badan oo laga barto ruuxa quduuska waad kontarooli kartaa fikirkaaga laakiin ma dhacayso inaad wax ka baratid waxa maskaxdaada ka buuxo aniga waxaan ugu yeeraa ka fikirid waxaad ka fikiraysa meesha maskaxda aado ayuu qofku raacaa haddii aadan jeclayn noloshaada gurigaaga aad oo kulan la yeelo naftaada oo ka fikir waxaad ka fikiraysa intii aad wax kasta dhaleecayn lahayd kulan adiga naftaada la yeelo isweydii inay tahay waqtigii aad ka tegi lahayd fikirkaaga xun aameen deji maskaxdaada oo ku hay waxa saxda ah waad og tahay mid ama laba qorniinka ka mid ah oo aynu isticmaalno marka aynu wax ka baranayno maskaxda waa 2 Korintios 10:4-5 hubka dagaalkayga ma aha xagga jirka laakiin xoog bay leeyihiin ilaah hortiisa in qalcada lagu dumiyo waxaanu baabi'inaa muranada iyo doodaha iyo fikirada fikir kasta maxbuus baanu kaga dhignaa si uu adeeco masiixa waanu ognahay inuu dagaal ka jiro maskaxdeena fikradaha qaldan sababaha aragtiyada oo aan ogoleen ereyga ilaah kitaabka quduuska wuxuuna siinayaa mas'uuliyad aan ku burburino waxyaalahaas runtii ma aha mas'uuliyad nafsadeena ah sababtoo ah markaad baratid ruuxa quduuska ilaahayow waxaan ku weydiisanayaa inaad garansiisid markaan ku fikirayo fikrad qaldan ku ducayso ilaahayow i garansii mar kasta oo aan ku fikirayo fikrad qaldan ha igu fiirsan inaan ku fikiro fikiro xun i garansii markaan ku fikirayo fikrad xun markaa bilowda inaad sidaa u ducaysatid waxaad ogaan doontaa uma baahni inaan sidaa u fikiro ma aha inaan sidaa u fikiro taasi ma waafaqsana ereyga ilaah habka aan ku burburin karno qalcadaha maskaxdeena waa inaan ku dadaalnaa barashada ereyga ilaah taasoo ah waxa aad samaynaysaan caawo waan idiin sabcinayaa sababtoo ah waxaad doorateen habeen jimco ah habeen xafladeed maalmihii shaqada way dhammaadeen waxaad samayn kartay waxyaalo kala duwan mushaaridiina u isticmaali karteen waxaan idiin fiicneen waxaad tegi karteen meelo kala duwan oo aydan u baahnayn inaad tagtaan uma baahnayn inaad inta imaataan gurigiina ayaa iska fadhiin lahaydeen waayo waxaa ku sadaashan shaqadii asbuuca waa idinkana kumanaan kun oo idinka mid ah ilaa dhismaha meesha ugu sarraysa waxaad baranaysaan ereyga ilaahay oo aad cibaadaysanaysaan waa idiin sabcinayaa
laakiin waa inaan idin sheegaa ulama jeedo inaan idin qalbi jabiyo tani idinkuma filnay inaad guul ku socotaan waxaa u baahantii inaad subaxii kacdaan oo wax sii barataan kadib ducayso oo cibaadayso kaniisadda aad maalinta xigta habeenka xiga kaniisadda aad sitmaanka soo socda cibaado u aad cashiradeeda ka fiirso telefishinka 5 maalmood ay soo socda iPad-kaaga iyo iPhone-kaaga wax ku shibo waxbarashada ereyga Ilaah sii wad ereyga si dhaqso ah waxaad bilaabi doontaa inaad u fikirto hab kale Roma 12:2 waxay leedahay way kaaneen dadka ifkan laakiinse ku bedelma gabi ahaan cusboonaanta maankiina inaad hubsataan nafsadiina waxa ay tahay doonista Ilaah oo wanaagsan oo isagu ku farxo oo kaamilka ah waa mahadsantihiin waa idin jeclahay Yeremiah 4:10 waxay leedahay ilaa goorma fikrada sharka ah oo idinku sii dhex jirayaan waan jeclahay taas Yeremiah 4:10 ilaa goorma fikrada sharka oo idinku sii dhex jirayaan kolkaas wixii ugu horeeyay oo aan gartay waxay ahayd inaan dareemo in dhibaatadii Israa'iiliyiinta inay iyaga ka qayb qaataan inay sii dheeraato inay guul helaan iyo sababta qaar badan oo iyaga ka mid ah aysan marnaba guusha gaarin nasiib darro waxaa jira kuwo badan oo aaminsan Masiixa oo jannada aadayo laakiin aan marnaba weligood ku raaxaysaneyn guul dunidan miyaad ogtihiin uma baahnid guul aad jannada ku aadid waxaad ku badbaadid dhiigga Masiixa inaad ku raaxaysatid safarkaaga waxaad u baahan tahay guul si aad dadka kale ugu noqotid marqaati run ah waxay u baahan yihiin inay ka arkaan noloshaada amiin wixii ugu horeeyay oo aan arko ay sameeyaan waxay ahayd inaysan haysanin aragti fiican oo mustaqbalka ah waxay mar walba ka hadli jireen wixii la soo dhaafay waxay u maleynayaan in wixii la soo dhaafay ay xukumayo mustaqbalkooda anigana waxaan halkan u joogaa inaan idin sheego wax walba oo aad soo marteen mar hore macna ma leh wax walba oo aad dhex maraysid hadda awood uma laha inay kaa celiyaan inaad heshid mustaqbal aad u wanaagsan haddii aad baratid inaad ruuxa wax ku aragtid kitaabka quduuska wuxuu leeyahay Ishaya 11 in Ciise wax ku amrin oo go'aan ku gaarin wax uu ku maqlay dhagihiisa ama uu ku arkay indhihiisa wuxuu wax ku arkay indhaha ruuxadda wuxuuna wax ku maqlay dhagaha ruuxadda kulligeen waxaanu madaxa ku leenahay dhago iyo indho laakiin waxaan kaloo leenahay dhago iyo indho ruuxi ah indhaha caadiga waxaan ku aragnaa waxyaalaha hareeraheena iyo waxyaalaha ka dhacay nolosheena indhaheena ruuxa waxaanu ku aragnaa waxaanu ku arkin indhahan waan ku fiirinaa hab wanaagsan Ilaah wuxuu leeyahay waxaan lahaan karaa mustaqbal wanaagsan anigana waxaan rumaysanayaa inaan mustaqbal wanaagsan lahaado mar dhawaad anigoo ku jiro Starbucks meel ka mid ah Utah naag ayaa igaratay oo waxay tiri waxaan warqad u soo qoray ministriga oo aan u sheegay dhibaatooyinkayga oo dhan waxay bilowday inay ii sheegtay dhibaatadeedii oo dhan waxay tiri haa waan kuu sheegayaa waxay tiri noloshayda waxaa lagu hoos tuuray bas dabcan sidaa kuma dhihin iyada waayo ma aan rabin inaan qalbigeeda dhaawaco laakiin aniga xitaa bas ayaa liigu tuuray ayaan ku fakiray hadda laakiin anaa wado amiin waxay ku joogsatay waxaa liigu hoos tuuray baska hoostiisa waxaan kuu sheegi karaa inay meel fadhido oo ay u sheegayso qof sheekadan murugada leh sanad hadda kadib ah 5 sano hadda kadib ah iyo 10 sano hadda kadib ah sheekadeedu waxay ahaan doontaa mid aad iyo aad u sii qaraar oo ka sii xuntii horeeto waayo ma haysato wax rajo ah ee ku bedesho nolosheeda ana waxaan u sheegay inuu Ilaah wax bedeli karo waxaan ku iri Ilaah waa ina aamintaa Ilaah waa ina rumaysataa laakiin waxa kaliya soo noqday wuxuu ahaa in darbi igu noqotay iyo marmarsiyo arrinkeedu wuxuu ahaa arrin qaas ah ma jirin mid dhibkaas oo kale loo geystay oo aan iyada ahayn waxa lagu hoos tuuray baask afarta lugood ee baska iyada dul saarnaayeen oo ma aysan haysan rabitaan ay kaga soo baxda baska waxaan go'aansaday inaan wada baska xun adna waa samayn kartaa sidaas oo kale waxaan idin sheego tani ma aha mid qof kale go'aankeeda ku gaari karo
tani waa wax adiga laga rabo inaad go'aankeeda gaartid. waxaan rabaa inaan tusaale u soo qaato bilowgii 13. waxaan halkaas ku aragnaa nin Ibrahim kaasoo wax walba waayay. ugu dambeyntii wuxuu helay wax ka badan wuxuu waayay. ma ogtahay dhaqaalaha ilaa waxaad weyn kartaa wax kasta aad haysatid. haddii aad baratid inaad wax ku aragtid indhaha rumaysadka waxaad helaysaa wax ka badan wixii aad weysay. ayuub wuxuu waayay wax walba. waxaa ku dhacay dhibaatooyin daran. ugu dambeyntiina ilaah wuxuu siiyey 2 jibaar wax ka badan wuxuu waayay. Ibrahim wuxuu barakeeyey wiilku adeerku ahaa Luut isagoo la qaybsaday wuxuu haystay. kadibna waxay labadooda noqdeen kuwo barwaaqaysan. waxaa lahaadeen xoolo badan iyo shaqaale badan way ku heshiin waayeen. marka Ibrahim wuxuu tegay Luut wuxuu qaatay talaabo. wuxuu rabay inuu nabad ka taliyo. wuxuu yiri waxaan ka baryaa inuu dagaal ina dhex marin. waxaad go'aansataa qaybta aad dhulka ka rabtid. anigana waxaan qaadanayaa qaybta kale. waxaan taas ka arkaynaa inay tahay dabeecad wanaagsan iyo is-hoosaysiin. aniga waxaan dhihi lahaa waxaan qaadanayaa waxa hore adigana waxaad leedahay waxa soo haro. waayo waxba maad haysan haddaan ku siin. laakiin Ibrahim xaqiiqdii wuxuu ahaa nin cibaado leh. malaha waa mid ka mid ah sababaha uu Ilaah axdi ula dhigtay isaga oo uuna u adeegsaday siduu rabay. intaasi waa nagu filan tahay haddii aad akhriso cutubka 13. Luut wuxuu doortay qaybta ugu wanaagsan ee dooxada Jordan. Ibrahimna wuxuu qaatay wixii soo haray oo isagu qaab wanaagsan ma lahayn. laakiin aayadda 14 waxay leedahay Rabbigu wuxuu Ibrahim ku yiri markuu Luut ka tagay kadib indhahaaga kor u taag oo meeshaad joogto ka fiiri xagga waqooyi iyo xagga koonfureed iyo xagga bari iyo xagga galbeed. waayo dhulka aad aragto oo dhan waxaan siin doonaa adiga iyo farcankaaga. aayadda 17 waxay leedahay balkac oo ku dhex soco dhulka dhererkiisa iyo balarkiisa waayo adigaan ku siin doonaa. halkaa wuxuu ku sheegayaa 2 arrin oo isku si muhiim u ah. bilowga wuxuu yiri fiiri waqooyi koonfur bari iyo galbeed iyo wax walba oo aad aragtid adigaan ku siinaya. hadda wuxuu si cad ugu sheegayaa inuu indhihiisa caadiga wax ku fiiriyo. laakiin wuxuu Ilaah idin leeyahay caawa fiiri mustaqbalka maxaad aragtaa. rumaysadka noloshaada. ma is aragtaa adigoo deynta ka baxay. ma is aragtaa adigoo degan guri aad leedahay. ma is aragtaa adigoo leh gaari cusub. ma is aragtaa adigoo shaqo wanaagsan haysta. ma is aragtaa adigoo barako u ah dad aad iyo aad iyo aad u badan. ma is aragtaa adigoo haysta. ma is aragtaa adigoo ku nool riyadaada. wax walba oo riyadaas tahayba ilaa ay tahay riyadii Ilaah waad ku noolaan kartaa riyadaas. ma arki kartaa. haddii aadan arki karin weligaa ma helaysid. kadib wuxuu ku yiri isaga wax walba oo aad aragtid adigaan ku siin doonaa. haddaba bax oo ku soco adiga tag oo qaado. taas macnaheedu waa inaad wax samaysaa. aniga waxaan laa riyo. ilaahay wuxuu siiyey riyo aan ku wacdiyey injiilka. waa wax uu Ilaah qalbigayga ku shubay markii ugu horreysay oo aan dhageystay wacdi. cajalad wacdi ah 1976. waxaan aad ula dhacay in qof hal aayad kala soo baxay kitaabka Marcos oo uu dhawaan 1 saac wacdiyey oo uu soo jiito. kadib rabitaankan igubay ayaa qasbay inaan injiilka ku wacdiyo adduunka oo dhan. taas waa doqonnimo markii loo fiiriyo meeshaan joogay waqtigaas. taas waa mid Ilaah. waxaan ahaa qofka ugu dambeeya oo la dooran lahaa inuu taas sameeyo. Ilaah wuxuu qalbigaaga gelinayaa waxaan micno u sameeyay maskaxdaada. sidaas kuma noolaan kartid maskaxan loo cusboonaysiin. waa inaad ku noolaataa maskaxda ruuxa. Ilaah wuxuu idin tusi doonaa waxyaalo fursado idin ah idinka. kolkaad akhrisid kitaabka waa inaad u qaadataa in adiga leedahay. ma aha oo kaliya inay leeyihiin koox qaasa ama dad qaasa laakiin ballanqaad kasta ee kitaabka adiga leh. kulli adiga leh. Ilaah wuxuu rabaa inuu ku barakeeyo adiga. Ilaah wuxuu rabaa inuu ku dalacsiyo adiga. Ilaah wuxuu rabaa inuu kor ku qaado adiga. Ilaah wuxuu rabaa inuu ku adeegsado adiga. Ilaah wuxuu rabaa inuu ku caafiyo adiga. Amen. laakiin waa inaad aragtaa taas.
hana sugin inaad ku aragtid indhahan ilaa aad ka rumaysatid. waa inaad ku aragtaa indhahaaga ruuxiga ah kadibna waxaad ku arki doontaa indhahaagan. waxaan deganahay Missouri taasoo la dhaho gobolka Itus. dhaqaalaha Ilaah waa inaad rumaysataa marka hore. ku arag marka hore indhaha rumaysadka kadibna indhaha ruuxadda. laakiin xitaa rumaysad waxaan caddaystay wuxuu Ilaah igala hadlay oo siiyey. waan caddaystay ballanqaadka Ilaah waa inaan weli baxaa oo aan qabsadaa dhulkaas. haddaba ereyga lahaansho waa erey xiise leh waayo haddaad baratid waxaa laga wadaa in dadka hadda haysta laga qaado kadibna aad lahaatid dhulka. waxaa ku jira cadow dhulkii ballanqaadka mana ay rabin inay wax ka qabtaan cadowga. haddaba ma aysan gelin. waa uun iska daba wareeganayeen waxay Ilaah ka sugayeen inuu wax ka sameeyo cadowga intaysan qaadan waxa Ilaah yiri qaata. tani waa fikrad xiise leh. run ahaantii 2 sannadood waxay gaareen xuduudkii ballanqaadka. haddii aan geeyo sharciga ku noqoshadiisa cutubka 1 haddaba na geeyo sharciga ku noqoshadiisa wax yar. sharciga ku noqoshadiisa 1 aayadda 20. waxaan idinku iri waxaad timaadaan dalka buuraha leh ee reer Amoor ee Rabbiga Ilaahiina na siinaayo. sidaa waxaa yiri Muuse. bal eeg Rabbiga Ilaahiina oo dalkiibuu idin hordhigay u kaca oo hanti u qaata. sidii Ilaah awoowayaashiin idin sheegay oo ah cabsanina hana qalbi jabina. oo mid kastoo idinka mid ah uu ii soo dhawaado oo uu igu yiri aynu niman iska hormarino si ay dalka inoogu soo baaraan oo ay inoogu sheegaan jidka aan marayno iyo magaalooyinka aan tegayno. waana ku farxay waxaan idinkala soo baxay 12 nin waana idin diray. waxaan ugu yeernaa 12kii basaas oo soo hubin lahaa dhulkii ballanqaadka. hubaal aayadda 25 waxay leedahay waxay gacmahooda ku soo qaadeen mirihii dalka oo inoo keeneen. haddana waxay nagu yiraahdeen dalku waa dal wanaagsan oo Rabbiga Ilaahaynu ina siinaayo. fiiri aayadda 26. laakiin idinku waa diideen inaa u kacdaan. waxaad ku caasiyowdeen amarkii Rabbiga. ma hayo waqti aan ku dhex maro laakiin dhammaadkii waxay go'aansadeen hadda waan tegaynaa. Ilaah wuxuu yiri maya ha isku dayina inaad gashaan hadda waayo idinlama jiro hadda. waxay ahayd inaad gashaan markaan idin amray. markaa kadib waxay joogeen xadkii dhulkii ballanqaadka. markii Ilaah ku yiri waa waqtigii aad gali lahaydeen dhulka oo qabsan lahaydeen ma ay gelin. way ka soo horjeedsadeen Ilaah oo waxay iska daba wareeganayeen 38 sannadood oo kale lama degaankii intooda badan halkaasi ku dhinteen. cashir yar ayaan idin barayaa caaw. hadduu Ilaah ku yiraahdo waa waqtiga aad ka qaban lahayd arrin haddii Ilaah ku yiraahdo waa waqtiga wax ka qaban lahayd arrin waxaa jiro subkasho aad ku xalin kartid arrintaas. iskamana qaadi kartid waqti kugu habboon. waqti aslada way ka fiicnaan doontaa ama waqti aslada diyaar baa u tahay. waxaad go'aansan doontaa waad ogtiin aniga waan ku daalay arrinkan u dulqaadan maayo waan xalinayaa arrinkan waayo waqtigaas Ilaah kuma subkan. waa inaan baranaa markii Ilaah nolosheena taabanayo. waa inaan u qaadanaa si dhab ah. haddii aad ogtahay inuu Ilaah wax ka qabanayo dabeecadaada xun wax ka qabo. haddii aad ogtahay inuu Ilaah wax ka qabanayo cafislaantaada wax ka qabo. ha samayn marmarsiyo xun oo ah sida u adag tahay in la cafiyo dadka. aan idiin sheego waxa dadka ku adag waa nacaybka. waxaa ka sii adag in la cafiyo dadka. cafiska wuu fudud yahay marka la garab dhigo nacaybka qaraarka iyo xanaaqa iyo suntaas mar walba kaa buuxda. hadduu Ilaah wax ka qabanayo caado aad leedahay caado wax burburisa. hadduu Ilaah fartiisa taabsiiyo uma baahnin inaad xitaa ku fakartid inaadan samayn karin. maxaa yeelay Ilaah weligiis waxba kaagama qabanayo arrin isagoo aan ku siinin awooddii aad ku gaari lahayd guusha. laakiin waa inaad rumaysataa. haddaba waxaan idinla qaybsanayaa arrin ku timid email. Cole oo degan Wisconsin wuxuu yiri markaan dhiganayay fasalka 9aad waxaan ka ordayay dhibaatooyinka nolosha. ilmaha iskuulka ayaa i dhibi jiray waayo waan la fiiraa. awoogay wuxuu siiyay cabitaanka ugu horeeyay anigoo 9 jir ah. waxaan ku dhex dhacay balwad waxaan leegu tuuray xabsi 7 bilood. sanooyin kadib waxaan arkay Joyce ka hadlaysa shir
waxaan bilaabay dhegaysigeeda. Waxaan bartay sida nolosha masiixiyiinta ay u wanaagsan tahay markaa ku dhex socotay miraha ruuxda oo baratid ereyga Ilaah inuu yahay hab nololeed. Waan adkaynayaa taas. Aan u barano ereyga Ilaah hab nololeed. Inaad maskaxdaada cusboonaysid waa inaad ilowdo wixii aad soo dhaaftay. oo indhaha ruuxdana gashatid bilowdidna inaad ku socotid ereyga Ilaah. qalcadaha waxay ku burburaan markaad ku dadaasho barashada ereyga Ilaah. hordhacan waxaa bixiyay saaxiibada iyo howlwadeennada Joyce Meyer mashruuceeda